muwaadiniin Soomaaliyeed ka siiyo ama ka siino baaris fatash ah ama forensic investigation oo aan filayo in warbaahinta iyo dadweynuhu la socdaan shaqada hay'adaha hufnaantu ay ka qabteen baaristaas. waxaan ula jeedaa markaan leeyahay hay'adaha hufnaanta hantidhowrka guud ee qaranka, xeer ilaalinta iyo booliiska, baarayaal ka tirsan xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa si xirfadaysan muddo 2 bil ah waxa ay uga shaqaynayeen baaristan, iyaga oo intaas waday xog ururin iyo daraasaynta caddeymaha baarista lagama maarmaanka u ah si hantidhowrku u helo xog iyo caddeymo ku filan soo saarista warbixinta baarista oo ah markii labaad xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku uu qabanayo muddada 60 sano ah ee uu jiro. baaristan fatashka ah oo bilaabatay 20 Abriil 2023 waxa ay dabooleysaa 5 sano oo laga soo bilaabo 8 Maars 2019 8 Maars 2018 ilaa 19 Abriil 2023. waxaa suurtagal ah in dadweynaha hay'adaha baaristu qusayso iyo xitaa eedeysanayaasha qudhoodu ay isweydiiyaan sababta baaristani u dabooshay ama loogu sameeyey muddada 5 sano ah. si kooban, sababta loo doortay muddo baariseedkaas ayaa ah in 8 Maars 2018 ay tahay maalinkii ugu horreeyey ee ay suurto gashay ama ay bilaabatay shaqada sistamka ama nidaamka kaydinta xogta maaliyadeed ee hay'adaha ay baaristu qusayso qaarkood. waxaa soo gabagaboobay wejigii koowaad ee baarista fatashka ah, kaas oo ku saabsanaa habkii howlwadeenka hay-adahaasi u maareeyeen qabashada, xisaabinta iyo xaraynta dakhliga dowladda Soomaaliya ka soo gala ilaha dakhli kala ah bixinta adeegyada kordhinta dalku joogga ama fees extension iyo fasaxa shaqada oo ah 2 adeeg oo ay qaataan shaqaalaha iyo muwaadiniinta shisheeye ee soo gala dalka Soomaaliya. waxa kale oo ay baaristu xoogga saartay nidaamka kaydinta caddeymaha qabashada, xisaabinta iyo xaraynta dakhli cadadkiisu ku dhow yahay 21 milyan oo dollar, kaas oo xafiiska hantidhowrku hubiyey in dakhligaas lagu qaatay meeshii lagu qabtay, taas oo ka dhigan in lacagtaas dakhliga ah ee dowladdu aysan gaarin khasnadda dhexe ee dowladda Soomaaliya. haddaba warbixintaas baarista fatashka ah oo sir ah, sidoo kalena qabiyo qoraal ah, waxa ay ku jirtaa gacanta xeer ilaaliyaha guud ee dowladda oo dowladda u qaabilsan dacwad oogista. doorka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku ku leeyahay dhanka maxkamadda waxa uu noqonayaa markhaati bareerannimo oo keliya. jumladda waa sir, waana qabyo qoraal. waxaan ula jeedaa maadaama galdacwadeedku uu ku jiro gacanta xeer ilaalinta, wax faahfaahin ah oo aan ka bixin karo ma jirto, waana qabyo qoraal oo inta ay maxkamaddu socoto eedeysano cusub waa lagu soo dari karaa, mid horena waa laga saari karaa. waxa aan filayaa in dadweynaha iyo warbaahintuba og yihiin in sababta warbixinnada ku dhisan aaminaadda ama perceptionka, malada iyo wax loo qaadan karo ama loo malayn karo inay astaan u yihiin ee quseeya musuqu ay Soomaaliya u horseeday in sanad walba kaalin ay ku yeelato warbixinnada la xiriira musuqa. sidaas awgeed, xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu ku dadaalay si daacad iyo hagar la'aan ah in baaristan lagu saleeyo cadaalad iyo hufnaan. xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku isaga oo tix raacaya qodobka 15aad ee sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka 1972
iyo qodobka 5 iyo qodobka 74aad xarafkiisa ca ama c ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed warbixintii uu ka diyaariyay baaristan fatashka ah waxa uu u gudbiyay 20 Juun 2023 xafiiska xeeraliyaha guud ee qaranka oo la wareegay mas'uuliyadda galdacwadeedka ugu dambeyn sida ku cad qodobka 114 ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo qodobka 1 iyo qodobada 1 iyo 17aad ee sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu u taagan yahay ilaalinta hantida ummadda Soomaaliyeed si madax bannaan oo hufan oo uu u maray una waafajiyay si waafaqsan xeerarka dhaqangalka ka ah dowladda Soomaaliya xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu halkan uga mahad celinayaa dhammaan shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adaha lagu sameeyay baaristan fatashka ah oo wada shaqayntii wanaagsanayd ee ay la yeesheen hantidhowrka muddadii baaristu socotay sidoo kale waxa aan u mahad celinaynaa hay'adaha hantidhowrka adduunka ee xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ku gacan siiyey muddada uu jiro horumarinta aqoonta xirfadda iyo adeegsiga waaya aragnimada intaas waa inta ku saabsan warbixinta fatashka ah midda labaad waxaa laga yaabaa inaad aragteen war-saxaafadeedkan oo lagu baahiyey warbaahinta gaarka ah ee midda dowladdaba si waafaqsan dastuurka ku-meelgaarka ah Agoosto 2012 sharciga maareynta maaliyadda guud sharci number 17 December 2019 iyo sharciga hantidhowrka guud ee qaranka sharci number 14 Abriil 1972 xafiiska hantidhowrka guud ee qaranku waxa uu sameeyaa hantidhowris madax bannaan oo ujeedadeedu tahay ilaalinta hantida qaranka danaha ama danta dowladda ee hantida guud maamulka maaliyadda guud iyo ku dhaqanka sharciga haddaba xafiiska oo gudunaya waajibaadkaas dastuuriga ah waxa uu soo saaray warbixinadiisii baarista si waqtiyeysan oo waafaqsan heerarka hay'adaha hantidhowrka caalamiga ah xafiisku waxa uu warbixinadiisa baarista sanad maaliyadeedka dhammaaday ee 2022 u gudbiyay labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda xafiiska ra'iisul wasaaraha wasiirka maaliyadda iyo xisaabiyaha guud warbixinada uu xafiisku gudbiyay ee la xiriira sanad maaliyadeedka dhammaaday 31 December 2022 waxa ay kala yihiin baarista hoggaansanaanta sharciga baarista warbixinta maaliyadeed ee dowladda xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka ayaa ku soo gudbiyey warbixinadan talo sharci oo ku saabsan xoojinta isla xisaabtanka daahfurnaanta iyo hufnaanta nidaamka maamulka maaliyadda guud ee dowladda si hay'adaha dowladdu u xoojiyaan waxqabadkooda ayna awood ugu yeeshaan bixinta adeegga dadweynaha si waafaqsan qodobka 45aad farqadiisa afaraad ee sharciga maareynta maaliyadda guud sharci number 17 December 2019 hantidhowraha guud waa inuu ku faafiyo warbixinta baaristiisa faafinta rasmiga ah ee dowladda si caam ahna loogu bandhigo dadweynaha hal bil kadib marka uu warbixintiisa u gudbiyo labada aqal ee baarlamaanka markii koowaad xafiiska hantidhowrku waxa uu ku guuleystay inuu warbixinada baarista sanadlaha ah si waqtiyeysan oo waafaqsan qodobka 45aad ee sharciga maareynta maaliyadda guud u gudbiyo labada aqal ee baarlamaanka iyo xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa mahadsantihiin